2016 kooxan la aqoon haybtooda ayaa ka dhacay bangiga Bangladesh lacag dhan $1 bilyan taasoo ka dhigan guusha ugu weyneyd ee ay gaareen kooxaha wax jabsada. $1 billion with a B, and they were asking them, why did you send these billions of dollar transactions? It was a very scary situation. sidoo kale waxaan meesha ka maqnayn jabsashada shirkadda Sony Picture 2014 oo ah tan ugu weyn ee soo saaraysay waqtiga filimada Hollywood is reeling from what may be the biggest and most devastating computer hacking in Hollywood's history. Hackers kadib markii ay sii daayeen filimka lagu magacaabo Seth Rogen oo ah mid ciidamada CIA-da ay soo qabanayaan nin lagu metelay inuu yahay an assassination attempt on North Korea's leader hogaamiyaha waqooyiga Korea Kim Jong-un. isla muuqaalkan waxaynu ku ogaan doonaa kooxda loo yaqaano Lazarus oo ah koox si dhow ula shaqaysa waqooyiga Korea. 2016 Febraayo bishii 7 agaasimaha bankiga dhexe ee Bangladesh ayaa ka soo degay wishka dabaqa 9aad waxaana ugu dhaqaaqay xafiiskiisa oo ahaa meesha ugu muhiimsan bankiga waxaana uu raadinayay inuu xalliyo cilad ku timi printerka bankiga oo ahayd mid soo laalaabanaysay maalmihii ugu dambeysay. printerka ama daabcadda oo ka mid ah automaatika loogu talagalay in ay shaqeeyaan 24 saac 7 cashi usbuuca. si kastaba ha ahaatee waa la hagaajiyay daabcaddii waxaana ku soo laabatay sideedii hore iyada oo bilowday in ay soo dayso xogihii waraaqihii intii ay ka maqnayd hawada. laakiin farxadaasi ma ahayn mid sii raagtaa waxaana soo baxay 35 waraaqood oo dheeri ah kuwaas oo lacag lagu dalbaday xukuumo kala duwan ku kala yaala Asia lacag dhan $1 bilyan. sidoo kale waxay sumcad xumad weyn u soo jiitay bangiga Mareykanka waqtiga aqoon ku lahaa kaydka federaalka New York si uu xakameeyo lacagaha bangiga Bangladesh. si kastaba ha ahaatee waxay isticmaali jireen shabakadda Swift waa hab lacagaha lagu kala dirsado taas oo sahlaysa inay ku xiriiraan dhammaan bangiyada adduunka waxaana ku yaala xarunteeda ugu weyn waddanka Mareykanka. Swift waa system adag oo u oggolaanaya bangiyada in aanan khalkhal ka gelin habka lacag gudbinta. kooxda Lazarus ama aysan labayn in ay ka faa'iideystaan intii lagu guda jiray bisha fasaxa ee February markaas oo xafiiska bankiga la xidhay. kooxda Lazarus waxay gashay shabakadda kombiyuutarada bankiga kaydka federaalka ee New York waxayna heleen macluumaad muhiim ah gaar ahaan kooxdu waxa ay baratay wareejinta lacagaha hababka iyo sidoo kale shahaadooyin uu bankiga Bangladesh u isticmaali jiray lacag bixinta waxaana la tuhunsan yahay in tuugta lagala shaqeeyay hawshan. kooxda Lazarus waxay lacagihii u kala direen qiyaastii 35 akoon oo ku kala yaala Philippines, Sri Lanka lacag dhan $951 milyan iyadoo la ogaaday in ay ka dambeysay Kuuriyada Waqooyi iyo kooxda Lazarus oo 10 sano u dambeeyay ahayd khatar aan la dhayalsan karin. 2014 weerarka lagu qaaday shirkadda soo saarta filimada Hollywoodka Sony Picture ayaa soo saartay cadeymo sheegaya in dowladda North Korea ka dambayso kooxda Lazarus. kooxda hackerska Lazarus ayaa howlgalkan waxay magacooda afgarashada ula bixeen AES. ujeedkana waxaa lagu sheegay in shirkadda Sony Picture markii ay sii deynaysay waraysi iyo mujaajalo filim ah isla markaana ay wada qorsheeyeen in filimkan ay soo daayaan lagu magacaabo Seth Rogen. filimkaas oo looga hadlayay soo qabashada hogaamiyaha waqooyiga Korea ee Kim Jong-un. intii aan filimkan la soo gelin shaashadaha adduunka kooxda Lazarus waxay ka howlgaleen in ay jabsadaan shirkaddan loo yaqaano Sony Picture. kooxdan waxaa weerarkooda u sahlay waqtiga waxaa jiray malware wax lagu magacaabo oo ah in shaqaalaha qayb ka mida loogu diro IP addresskooda kadib shaqaalahaasi marka ay ka soo galaan xogta kombiyuutarka shirkadda in ay IP addresska u gudbiyaan malwareka kadibna ay sidaa ugu helaan xogta shabakadda shirkadaha. kadib markii ay intaas u hergashay kooxda loo yaqaano Lazarus ee hackerska ah waxa ay jabsadeen xogta shaqaalaha. kadib kooxda Lazarus waxay howlgalkoodii ka bilaabeen in ay xadaan scriptiga filimada oo ka kooban qoraalada filimka qorshooyinka soo saarista iyo koobiyada filimada. sidoo kale waxa ay xadeen xogta shaqaalaha gaarka ah iyadoo loo madlan yahay sideynta filimka. si kastaba ha ahaatee dhirbaaxadii ugu weyneyd uguna khasaaraha badnayd ayaa ku
dhacday shirkadda Sony Pictures markii hackersku ay masaxeen kombiyuutarada iyaga oo xogta kala baxay ayna ku shubeen fayrasyo khatar ah oo sababaya in aan dib loogu hawlgali karin. Shirkadda Sony ayaa si degdeg ah hoos ugu dhacday kuna keentay khasaare ba'an, waxaana lagu qiyaasaa si ay uga soo kabato khasaaraha in ay ku dhacday qiimo dhacdan $15 milyan. Kooxda Lazarus waxay u hanjabeen in ay si degdeg ah loo saaro filimkan, sidoo kale waxay u hanjabeen shaleemooyinka ay sheegeen in ay weeraro ku qaadi doonaan haddii ay sii daayaan filimkan. Shirkadda Sony ayaa kasashay bandhigga rasmiga ahaa iyo wax kasta oo ku saabsan filimka laga matalayay hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya. tan ayaa loo sababeeyay in kooxda Lazarus ay xiriir weyn leeyihiin hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un. ilaa 2009kii weerarada ugu ba'naa ee kula kaceen in ka badan 15 wadan. sidoo kale labadii sano ee ugu dambeeyay 2022 ilaa 2023 waxa ay ku qaadeen weeraro cryptocurrency cointa loo yaqaano CoinEx. Sebtembar 2012 Sebtembar 2023 waxay ku qaadeen weerar kaas oo ay ka dhaceen lacag dhan 54 milyan. sida la sheego weerarada ay ku qaadeen kombaysyada loo yaqaano cryptocurrency waxaa ka mid ah Coinbase oo ay kala baxeen 37 milyan, Alphabo 60 milyan, Stake.com 41 milyan. kooxdan loo yaqaano Lazarus oo ah gacanta midig ee wadanka waqooyiga Kuuriya ayaa ah cadowga koowaad ee cryptocurrency, iyaga oo 10kii sano ee ugu dambeeyay ku hayay weerar ba'an taas oo sababta in ay markasta ka dhacaan lacag aan caadi ahayn, iyadoo FBI-da Mareykanka ay xal u heli waayeen sidii xal loogu heli lahaa dhicitaanka lacagaha faraha badan ee laga dhacayo cryptocurrency oo ay caadaysteen nimanka loo yaqaano. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan, fadlan like waa noo muhiim. haddii aad halkan nala soo gaadhay fadlan subscribe saar muuqaalka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.